annagu soo istaagay maxaase annagu nooca ma nihiin federaal baan nahay ciidanka. halkani waa dunida meediya daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena falanqeynta arrimaha siyaasadda oo aad ka daawataan dunida meediya. haddii ay tahay markuu kugu horeysa janalka waxaan daawada kaa codsanayaa subscribe saarto sidoo kale dambeelka aad furato si uu kuu soo gaaro muuqaal walba oo aan halkan kusoo gudbino. waxaa la helayaa warar hoose oo sheegaya in rag ka tirsan ururka al-shabaab islamarkaana sita warqado faalis ah ay gudaha u galeen xarunta hay-adda nabad sugidda ee NISA, halkaasi ay kula ballansanaayeen taliyaha hay-adda nabad sugidda ee NISA Mahad Maxamed Salaad. sida labada ogyahay waxaa dhowr jeer horey looga hadlay arrimaha ku saabsan Mahad Salaad ee ku aadan ka tirsanaashaha ururka al-shabaab. waxaa horaantii bishii Agoosto Muqdisho ka dhacay weerar lagu qaaday mid ka mid ah hoteelada ay ku kulmi jireen xubnaha ka tirsan dowladda, kaasi oo lagu magacaabi jiray Hotel Xayaat. waxaa weerarkaasi uu socday muddo saacada ah, ha yeeshee iyadoo uu weerarka socdo hotelka waxaa ciidanka goobta ku sugan kasoo saaray Mahad Salaad oo ah taliyaha hay-adda nabad sugidda NISA, halkaasi oo markuu dambe isaga baxsadeen raggii weerarka kusoo qaaday. waxaa marba markii ka dambeysay soo ifbaxayay shakiyada ku aadan in Mahad Salaad uu yahay al-shabaab uuna la shaqeeyo, sida ay warbixino kusoo saareen sirdoonada Mareykanka ee ka tirsan NISA ay sheegeen inay Mahad Salaad yahay al-shabaab. dhanka kale Mahad Salaad iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa dhex maray dagaal hoose oo ka dhashay inuu Mahad Salaad madaxweynaha joojiyo dagaalku ku baaqay halkaasi oo lagula jiro ururka al-shabaab. Mahad Salaad ayaa waxa uu haatan reerihiisa ugu baaqay inaysan ka qayb galin dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab. dhanka kale Mahad Salaad ayaa xubno ka tirsan al-shabaab kula kulmay gudaha magaalada Muqdisho, isagoona kala hadla danaha gaarka ah ee ka dhexeeya. waxa uuna u fududeeyaa kala gudbinta hubka iyo inay gudaha u galaan goobaha qaaska ah, isagoona geliya qaab farsamaysan. Mahad Salaad inta uu yahay taliyaha hay-adda nabad sugidda ee NISA, Soomaaliya ma noqon doontaa mid nabada? waa su-aal ay isweydiinayaan dad badan, balse Mahad Salaad waxa uu xilkani u magacaabay xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha haatan talada dalka haya, isagoona xilka ka qaaday Fahad Yaasiin oo ahaa taliyihii hore ee NISA. madaxweynaha haatan talada dalka haya xasan sheekh maxamuud ayaa Mahad Salaad u magacaabay taliyaha hay-adda ugu weyn ee nabad sugidda NISA ee dalka Soomaaliya, xilli uu xilka ka qaaday taliyihii hore ee nabad sugidda NISA Fahad Yaasiin oo horey u ahaa taliyaha NISA, kaasi oo la magacaabay xilligii uu xilka madaxtinimo hayay madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo. ha yeeshee xasan sheekh maxamuud ayaa Fahad Yaasiin xilka ka qaaday ka tirsanaashaha uu ka tirsanaa xubnihii la soo shaqeeyay madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdulaahi farmaajo, isagoona ku madax adeegay inuu markaasi xilkani u magacaabo Mahad Salaad oo horey loo ogaa inuu yahay xubin ka tirsan ururka al-shabaab. ha yeeshee waxa uu haatan marba marka ka dambeysa soo ifbaxaya dagaalka ka dhexeeya madaxweynaha talada dalka ee xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale taliyaha hay-adda nabad sugidda. taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda NISA Fahad Yaasiin ayaa xilli uu bixinayay waraysi waxa uu sheegay markii uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka qaadayay xilka inuu u diray waraaqo, islamarkaasina dhowr jeer oo qadka taleefanka kula hadlay, isagoona kaga digaya in uu Mahad Salaad u magacaabo taliyaha nabad sugidda hay-adda NISA. ha yeeshee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ku madax adeegay inuu markaasi xilka u magacaabo taliyaha haatan NISA Mahad Maxamed Salaad, kaasi oo marba marka ka dambeysa ay soo baxayso eedihiisa. goordhaweyd ayaa waxaa qaar ka mid ah xubnaha sirdoonada Mareykanka ka tirsan islamarkaasina ku sugan gudaha Soomaaliya kana tirsan hay-adda nabad sugidda NISA ay ku dhawaaqeen in Mahad Salaad laga helayay codad sir ah, islamarkaasina isagoo qadka taleefanka kula sheekeysanaya xubno ka tirsan ururka al-shabaab, islamarkaasina kala hadlaya danahooda gaarka ah. ha yeeshee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa iska indho tiray arrimahaasi, waxaana ay dowladda Mareykanka sheegtay inay Mahad Salaad ka qaadi doonaan xilka, islamarkaasina ka gudbin doonaan dacwad. ha yeeshee waxa uu haatan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka qoomameynayaa magacaabista uu magacaabay Mahad Maxamed Salaad oo ah
taliyaha hay-adda nabad sugidda ee niisa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa laga sugayay inuu go-aan ka gaaro Mahad Salaad, balse ilaa iyo haatan ma cadda go-aan cad uu ka soo saaray inuu xilka ka qaadi doono Mahad Salaad. Ha yeeshee waxaa marba marka ka dambeeya soo ifbaxaya in isaga iyo Mahad Salaad uu dhex marayo dagaal. Haatana waxaa soo ifbaxay in isaga iyo taliyaha hay-adda nabad sugidda niisa ay isku affahmi laayihiin in la joojiyo dagaalku madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku dhawaaqay, kaasi oo ku aadan in ururka Al-Shabaab laga saaro gebi ahaanba Soomaaliya. Dhanka kale, Mahad Salaad oo haatan ah taliyaha hay-adda nabad sugidda niisa ayaa wuxuu reerkiisa iyo weliba odayaashiisa ugu baaqay inaysan ka qaybgalin dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab. Waa tahay daawadayaal, guud ahaan intaasi ayaan kusoo afmirayaa barnaamijkeena falanqeynta arrimaha siyaasadda oo aad ka daawanayseen Dunida Media. Haddii ay tahay markii ugu horeysay janalka, waxaan daawada kaa codsanayaa inaad subscribe saarto, sidoo kale gambaleelka aad furato si uu kusoo gaaro muuqaal walba oo halkan kusoo gudbino. Ha ilaawin inaad like saarto muuqaalka. Waad ku mahadsan tahay la joogistaadii weliba la jaanqaadkaaga.